بسم الله الرحمن الرحيم markale kusoo dhawaada xalqadii labaad ee barnaamijka halbeegyada lagu dooranayo qof kasta ee la rabo position hogaamineed in loo dhiibo barnaamijkan la yiraahdo halbeegyada islaamka oo qabo si qofka lagu xulaya qof kasta ee position hogaamineed ama xil hogaamineed loo dhiibayo ama ha noqdo dawlad ama ha noqdo arrimo bulsho qoys ama ha noqdo ganacsi laakiin qofka hadii marba laga dhigayo hogaamiye si lagu dooranaya waa barnaamij runtii wacyi gelineed oo aad u qiimo badan oo aan rabo bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtii inaan gaarsiiyo barnaamijkan waxaynu maanta maraynaa xalqadiisa labaad annagoo duubnay xalqadiisii koowaad waxaynu sheegnay xalqadii hore qofkii aan la soconin waxaan kula talinayaa inuu xalqadaas u laabto waxaynu dhahnay qof kasta ee position xil hogaamineed loo dhiibayo waxaa jira 10 sifo ama 10 tilmaamo oo laga rabo qof kasta ee hogaamiye loo dhiibayo tilmaantii koowaad waxaynu ku soo sheegnay xalqadii labaad insha Allah ta'ala marka tilmaanta labaad ee qof kasta ee xil hogaamineed boos hogaamineed loo dhiibayo waa in uu yahay qof caadil ah oo cadaalad sameynaya waxaan ognahay cadaaladdu heerka ay ka taagan tahay islaamka marka la joogo waa sifo ama tilmaan aad runtii u qiimo badan wax aan cadaalad lagu sameeyna macnaheedu ma bulaalaan mana jiraan sidaas darteeda ayaa islaamku wuxuu aad u farayaa oo amrayaa in cadaalad la sameeyo ama cadaaladaas ha noqoto mid umad dhaxdeeda ah ama dawlad ama qoys ama cid kasta laakiin meel kasta hogaamin laga sameeyo waa in cadaalad la sameeyo sababtoo ah cadaaladdu waa asaasul mulk boqortooyo hadaad aragto ama boqortanimo waxa asaas u ah oo laga fiiriyaa waxa loo yaqaan cadaaladda ayaa laga fiiriyaa that's why islaamku uu aad ayadaha quraanka u dhiirigelinayaan wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl wardad yahow hadaa dadka xukumaysaan waradka cadaalad u sameeya dadka eexda ka daaya dulmiga ka daaya cadaalad darrada ka daaya waxaan ognahay ama aan la soconaa markii taariikhda wadankayna aan dib u eegno burburka nagu dhacay dhibaatada nagu dhacday midda hadda haysata runtii waxa asaas u ah cadaalad darrada mujtamaca iyo bulshada dhexdeeda ka kala jira ayaa runtii aad u ah markasto oo aan cadaaladda kordhinaa markasto waa in aan ummad ahaan iyo dawlad ahaan runtii aan aan u bulaalnaa sababtoo cadaaladda waa lagu bulaalaa dulmigana waa lagu dhacaa oo hoos ayaa loogu galaa wuxuu leeyahay shaykhul islaam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi inna allaha yuqim ad-dawla al-aadila walaw kana kaafira ilaahi subhanahu wa ta'ala wuu bulaaliyaa wuuna jirsiiyaa dawladda caadisha ah hadii ay rabto ha noqoto dawlad gaal ah oo aan islaamba ahaynba ilaahi subhanahu wa ta'ala ma bulaaliyo wuuna dumiyaa dawladda zaalimada ah ee wax dulminaysa walaw kaanat muslima haba noqoto mid muslima haba noqotay sidaas darteeda ayaa cadaaladdu u tahay asaaska mulkiga iyo wax kasta u tahay meel kasta cadaalad ka jirto qoyskii cadaalad ka jirto waa bulaalaya dalkii cadaalad ay ka jirto waa bulaalaya ummadda dhexdeeda iyo cadaalad ka jirto waa bulaalaya sidaas darteeda ayaan u baahanahay maanta hadii aan nahay Soomaali aan nahay waxa ugu muhiimsan oo dalkayna iyo dadkayna Soomaaliyeed runtii ay u baahan yihiin cadaalad cadaaladuna meel dheer ha ka raadinina hooyada iyo aabaha waa inay cadaalad sameeyaan ilmahooda ay cadaalad u sameeyaan qofkii gudoomiye jaamacadeed waa inuu sameeyo shirkad ganacsi qofka kuma waa inuu cadaalad sameeyo madaxweyne dawladeed waa inuu cadaalad sameeyo cadaaladdu waa shay caam ah kuma xirna kaliya siyaasadda kaliya eeganina siyaasaddu waa asaas xukunkuna iyo maaragtaa waa asaas laakiin meel kasto ay runtii cadaalad galaysaa marka qoyskii dhexdiisa aan cadaalad sameeyay iyo madaxweynihii aan cadaalad sameeyay iyo gudoomiyihii aan cadaalad sameeyay iyo ganacsiga shirkadda ganacsi maamulihii aan cadaalad sameeyay macnaheedu hogaamiye ma sababtoo cadaaladdu waa ruuxda hogaaminta jir aan ruux ahayn ma dhaqaaqi kariyo sidaas darteeda ayaa cadaaladdu u tahay ruuxda hogaaminta hadii aad rabto inaad hogaamiye fiican noqoto waa inaad cadaalad u samaysaa dadka aad hogaaminayso dulmiga iyo cadaalad darradana aad meel iska dhigtaa oo aad samaysaa taariikhda waxaan ognahay islaamka dadkii ugu cadaaladda badnaay ama cadaaladda ugu badnaay sameeyay waxaa kamid ahay sayidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu oo digtihiin dawladda islaamka meesha uu gaarsiiyay cadaaladiisa ummadii iyo sidii u bulaashay dawladnimadii sidii u faaftay meel kasta sidii gaareen ilaa dawladihii xilligaa jiray ay la yaabeen islaamka awoodiisa iyo dhaqaaqiisa iyo sida uu sameeynayo markaas dawladii la oran jiray Furs ama boqorkii Kisra la dhihi jiray ayaa wuxuu soo diray wafdi ayuu soo diray asigoo raba dawladan awoodda badan ee bulaasha ee dawladnimadiisa duminaysa bal siday u nool yihiin iyo boqortooyadooda iyo xaaladooda si uu u ogaado markaas wuxuu soo diray Kisra boqorkii Kisra
oo xilligaa jira ayaa dowladda islaamka uu hogaaminayay sayidina cumar bin khadaab ayuu wuxuu u soo diray 7 qafood oo ergey ah ergey ayuu soo diray oo 7 qafood ka kooban ergeyga oo soo indheeya bal xaaladda iyo muslimiinta iyo boqortooyada muslimiinta iyo qaabka u nool yihiin wafdigii way ka soo kaceen boqortooyadii waxay ka soo kactimeen Kisra iyagoo u socda muslimiinta waxay soo galeen magaaladii Madiina oo looga talinayay islaamka xilliga looga talinayay marka iyaga suuradda ay haysteen waxay ahayd boqortooyo waaweyn madaxtooyooyin cajiiba wax aan caadi ahayn ay runtii aad iyo aad u qiimeynayaan markay soo galeen ayay waxay u yimideen saxaabadii ay u yimideen markaas waxay dhaheen waxaa noo tilmaantaan madaxtooyada uu degan yahay boqorka muslimiinta madaxtooyada uu degan yahay Umar bin Khadaab sayidina Umar ay ula jeedaan markaas fadaxika saxaabadu ku qosleen way la yaabeen sababtoo ah madaxtooyo iyo boqortooyo iyo waxa soo meesha kama jiraan fa ashaaru waxay u tilmaameen guri dhooba ka samaysan oo sayidina Umar bin Khadaab uu deganay ay waxay dhaheen gurigi boqorka waa ka aadeytaga way qariibsadeen guri dhooba ka samaysan guriga muxuu yahay sidoo uu yahay ayay la yaabeen markaasay tageen gurigii gargaraaceen gurigii markay garaaceen waxa u soo baxay Abdullah bin Umar waa wiilkii sayidina Umar bin Khadaab radiyallahu anhu markaasay waxay dhaheen aawa amiirkii aawa markaasuu dhahay ma joogo laakiin banaanka ayuu jiraa Abdullah bin Umar ayaa wafdigii Kisra ka yimid waday asagoo raba inuu soo tuso maaragta amiirul mu'miniin Umar bin Khadaab radiyallahu anhu markaasuu waday markaasay wuxuu wafdigii geeyay ka socday boqortooyadii Kisra ayuu wuxuu geeyay sayidina Umar bin Khadaab oo geed hoostiisa jiifa oo gacantiisa bidixda barkan oo iska hurdaya oo maaragta inta dhabar u jiifa meel ciidan iskaga jiifa oo wax yaalaba aysan jirin markaas ayaa wafdigii ka socday dowladii Kisra way la yaabeen way rumaysan waayeen xaaladda sayidina boqorka muslimiinta oo intaas oo ciidan male oo jabiyay labadii dowladood ee dunida xilliga u weyneed Rum wa Furs in uu meel maaragta carra ah iska jiifo oo gacantiisa bidixda ah oo iska barkan yahay iyadoo wax waardiye aysan la jirin iyadoo waxba aysan la joogin waxay la naqatay wax la yaab leh oo la arag oo la maqal ay runtii la naqatay markaasa wafdigii ninkii u ahay hogaamiyaha u ahay ayuu wuxuu dhahay yani wafdigii ayay waxay dhaheen erayo cajiib oo saddex fa ayay dhaheen oo taariikhda gashay saddexda waxay dhaheen facadalta فأمنت فنمت يا عمر وعمرو عدالة أيا سميسي آمن أيا نقطي مركاسا اسكا هرودي جيدها هوستولا سدح إري أو تاريخ دقا الشيء أو كترجميسي عدالة دي حلقي سيدنا عمر بن الخطاب jirtay ayay ahayd markastoo cadaalad ay timaad dawladdu waa bulaalaysaa xilligiisa waa bulaashay xilliga Umar bin Abdul Aziz way bilaabeen taariikhda marka waxa la ogeeyay xataa dawladaha aan muslimka ahayn markaasay cadaalad dhaxdooda sameeyeen dawladdaas runtii waa bulaalaysaa hadda annaga marka Soomaaliya dalkayna dadkayna Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad runtii u dhiirigelinayaa qof kasto haddii aad tahay aabbo مسؤولك العروتيسا أما أتاي هايو مسؤولك قويسكيدا أما أتاي شركة جناحسي أدنى ملكتاي أما ضد أدنى مشو أما الدولة أما وزير أما وزارة مال كستو أدنى مشو إن عدالة كسمايشو سيس دلكينا إيه دلكينا سوماليا أو هرو دقاقو هدان دول مجال جوجين أو عدالة لا سماينين يعني سوماليا دلكينا إيه دلكينا هرو دقاقي مايان سياس درتي هذا وحان كل رجلينيا ورددي هو عدالة سماية إلهي قرآن كما يقول لي ما آيات فربضا ودو عدالة سماية ولو على أنفسكم ورنفتي نبأ الله كدغا إنسانكو عدالة إيه حدي أسمايسو أدغنا ويكو أنفعنا dadka oo dhan iyo bulshada dhan runtii way anfacaysaa insha Allah taala marka dalkayna iyo dadkayna bulaalkiisa iyo hor u dhaqaaqiisa iyo horumarkiisa wuxuu ku xiran yahay cadaalad aan sameeyno oo aan iska joojino dulmiga iyo ku tumashada xuquuqda dadka kale lagu tumanayo arintaas cadaaladda ah oo aan sameeynayno ayaana horseedi doonta insha Allah taala horumarka dalkayna iyo dadkayna Soomaaliya aad iyo aad u mahadsantihiin meel kasta oo joogtaan halkaas aan ku soo gabagabeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh